Welcome to Waan salaamay 1, Unit 7, Audiovisual Materials. You can get updates of Waan salaamay 1 by following the Facebook page below, Liban Rouge. The materials of this video are available on Liban Ali Hersi's YouTube channel. Unit 7.1 Everyday Things. Boorso jeeb, boorso gacan, qadaadiic, furayaal, dhalo biyo, tufaax, ismaris, sandwich, telefoon gacan, kamarad, sameecad dhego, tablet, laptop, qalin qori, qalin, qalin biire, xusuus qor, warqad, wargeys, joornaal, noofal, qaamuus, maab, muraayad, burush ilko, dallad, burush timo, shanlo, ookiyaale, ookiyaale qorrax, kuul, qoorgashi, saacad, baasaboor, kaar aqoonsi, laysin, batante. Verb type 2. Type 2 verbs consist of verbs with causative affixes. For example, jooji, cause to stop or stop. These verbs normally end in I and E. For example, tiri, samee, toosi, shaqee. The general present of the verb type 2A. Tiriyaa, tirisaa, tiriyaa, tirisaa, tirinnaa, tirisaan, tiriyaan. Focus particle waha. In Unit 6.8, you have already learned the use of the focus particles ba and aya. There is another way of focusing a noun phrase in a sentence. This is done by using the focus particle waha. Ninku waxa uu nadiifiyaa jidadka xaafadiisa.
Gabartu waxa ay nadiifisaa dariishadaha qolkeeda. The negative general present of verb type 2a. The negation particle ma, alternatively with the short subject pronoun, is placed before the verb. Ma aan tiriyo, ma aad tirisid, or ma aad tiriso. Ma uu tiriyo, ma ay tiriso, ma aan tirino, ma aad tirisaan, ma ay tiriyaan. The general present of the verb type 2b. A final long a in the stem changed to the diphthong I when the ending begins with a consonant. Also, T in the ending changed to S after the consonant ya. Sameeyaa, samaysaa, sameeyaa, samaysaa, samaynaa, samaysaan, sameeyaan. The negative general present of the verb type 2b. The negation particle ma, alternatively with the short subject pronoun, is placed before the verb. Ma aan sameeyo, ma aad samaysid, or ma aad samayso. Ma uu sameeyo, ma ay samayso, ma aan samayno, ma aad samaysaan, ma ay sameeyaan. The ending na, which means and. When one clause is joined to another, na is attached to the first word or phrase of the second clause. Kani waa Ali, kanina waa Umar. Tani waa Aasha, tanina waa Canab. Tani waa gabar, kanina waa wiil. Waan fiicanahay, adiguna. Thanks for watching. If you liked the video, please hit the like button and share the video with your friends and family who are interested in Somali language. Thanks again and see you in the next session. Goodbye.